dhismaha garoonkan oo bishii tobnaad ee sanadii 2009 laga bilaabay duleedka magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa haatan waxa uu marayaa meel gabagaba ah iyadoo gabi ahaanba sidaad wada arkaysaan dhulkii loogu talagalay runwayga ay wax yar ka harsan yihiin haddaba waxa bariyahan dambe si habsamiye uga socotay garoonka shaqo taas oo noqon doonta tii lagu dhameystiri lahaa airportka magaalada Buuhoodle si loo taagi lahaa terminalka iyo xafiisyada uu yeelan lahaa airportku garoonkan ayaa waxa uu noqonayaa garoonkii ugu horeeyay ee laga taago deegaamada SSC tan intii ay meesha ka baxday xukuumadii dhexe ee dawladda dalka Soomaaliya waxaana guud ahaan iyo gabi ahaanba si rasmi ah uga qayb qaadanayay ololaha lagu dhameystirayo airportka magaalada Buuhoodle aqoon-yahamiinta iyo qurba joogta ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxa uu haatan u socdaa si dardargelin ah hadii ay u socoto shaqadu sida la rabo waxa laga yaabaa garoonku inuu soo gabagabo bilooyinkan inagu soo aadan isla markaasna si rasmi ah loogu soo dago lagana duulo booqanay airportka Buuhoodle sida aad aragtaan airportku shaqo aad iyo aad u badan ayaa laga qabtay fikirkan dadkii lahaana aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin imikana waxa u harsan shaqo aad iyo aad u fara badan marka sida awgeed waxaan codsanaynaa dalka gudihiisa iyo dibadiisaba in aad iyo aad la isugu xilqaamo oo airportka sidii loo dhameystiri lahaa laga wada qayb qaato sida awgeed hadda waad aragtaan airportkii waanu joognaa waxa weeye waxa aad iyo aad loo dhigay ciid fara badan oo lagu soo kicinayo hareerihiisa meelihii godnaa marka wuxuu u baahan yahay airportku waxa ka dhiman qalabkii baa ka dhiman sida gradle iyo rugley iyo baldoosar ciidda lagu kala bixiyo kuwaasina waxay ku iman karaan de kharash loo helo waxa laga helayaa gobolada inagu xeeran sida Gaalkacyo caabud waaqo iminka garoon laga dhisayo marka waxaan ku booranaynaa jahliyadaha dibadda iyo dadka deegaanka labaduba inay ka qayb qaataan oo si fiican uga qayb qaataan airportka si wax weeye de horumarka wadanka loo hormariyo oo wax weeye dadka kale xareeraheena loola tartamo oo aan la caajisin sidaas ayaan anigu ku talin lahaa mara hore badanna waanu soo booqanay airportka oo hata ka horeysay wax weeye marba waxaan de dadka dibadda ka imanaya waxbay u sii siyaadinaysaa laakiin wali airportka ma dhameystira waxaan rabaa moogta in de shaqadiisa waxa weeye aad iyo aad looga qayb qaato waan salaamayaa dadka jahaliyadaha ee fakarkooda iyo dhaqaalahooda iyo hantidooda u horay wadanka gudihiisa sida iyo billahi tawfiiq Xasan Jaamac adigu waxaad ka mid tahay dadka ganacsadaha ama shaqaalayaasha si fiican u shaqeeya gobolka Cayn ka howlgala marka aad eegtay qiyaas ahaan garoonka baaxadiisa iyo dharkiisa balliciisa intee ayaa lagu qiyaasi karaa baa la oran karaa wallahi horta walaal garoonku aad iyo aad ayuu u weyn yahay oo baaxad weyn yahay diyaaraduna sideedaba marka ay soo degayso garoonka ku soo degayso waxay soo qaadataa runway bay soo qaadataa dhulka kale ee baalaha ku bixinayso airportku uu banaan yahay laakiin waxa imka dhimani ee la rabin la dhameystiro waa runwaygi halkii diyaaraddu soo caga dhiganaysay ayaa waxa weeye ayaa u baahan tahay in si dhaqso loo dhameystiro waxa weeye imka diyaaradaha Soomaaliya yimaada waa diyaarada iska aad u kooban oo aan waaweynayn marka kuwaasi waa fudud tahay sida loo dhameystiri lahaa jidkii ay ku soo degi lahaayeen marka taa waxa weeye de inta aanu arkaa inay ka dhiman tahay airportka runwaygaas oo la dhameystiro oo waliba si dhaqso loo dhameystiro marka jaamaca runwaygaas muxuu ku iman karaa hadii macdalaha loo yahay waxyaabaha muhiimka u baahan yahay garoonka isla markaana aan gacanta lagu haynin maxay tahay sababta runwayga loo heli karaa ama ujeedada sida ugu fudud loo heli karaa noqon karta runwaygaas wuxuu ku iman karaa iyada oo la helo qalabkii lagu simi lahaa sida gradesha bahashan cagafta kule caloosha kule malqacada iyo baldoosar oo ciidda lagu kala bixiyo labadaa unbu ku iman karaa iyo rugleydiyo dabeedna marka la mariyo inta airportka la rusheeyo marka la mariyo oo lagu simo ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa jaariyadaha dalka dibadiisa ku maqan iyo dadka gudaha ku dhaqan jooga meelaha uu ka socdo hawsha garoonku maadaama uu garoonkan yahay garoonkii ugu horeeyay laga hirgeliyay gobolada SSC
gaar ahaan gobolkan Cayn isla markaasna muddo in badan laga soo shaqeynayay walow muddada inta leeg ay soo wadeen jaaliyada gobolada SSC ilaa imikana ay gacanta ku wadaan maxaa aad ugu baaqaysaa ugu dambeyn jaaliyada gobolada SSC iyo dadka gudaha waxaan ugu baaqayaa sidii markii horeba ay ugu diyaar garoobeen ee ugu dhiiradeen inay imikana ayaan uga caajisin wax allaale iyo wixii uu ku kacayo airportkaasi hadday dalka gudihiisa tahay iyo tay dabadiisa tahay labadaba in si dhaba looga midho dhaliyo oo waxa weeye loo dhammaystiro oo waliba dadka guduhuna ay ka qayb qaataan oo waliba xoogga ay iyagu ku biiriyaan waan dadka dabadda qura aan dhaqaalaha laga sugin laakiin dadka guduhuna ay xoogga iyo xoolaha ku biiriyaan sidaasaan ugu baaqayaa sida aad ka aragtaan airportka iminka aad aragtaan airportku waa airportka aad aragtaan caalamiga aad iyo aad baa looga shaqeynaya waana lagu mashquulsan yahay waxyaalaha uu baahan yahayna sida aad kabarada ka aragtaan idinka arkaya dadka ka shaqeeyay ka soo jeeda goboladan SSC aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wayna ku mahadsan yihiin cidii wax gelisay khayr allaha siiyo cidda ku tala jirta khayr allaha siiyo cidda ka shaqeysay khayr allaha siiyo waxaan idinku bogaadinayaa haddii aad tihiin qurba joogta gobolkan Cayn khaasatan ka soo jeeda inaad soo dhamaystirtaan airportka annaguna aan isla kiin garab taagno wax qabad sida ka muuqanaysa sawirka airportka waxyaalaha uu baahan yahay horaa la idinka sheegay waxay ka mid tahay qalabka lagu sameeyo airportka magaalada Buuhoodle waxayna burburisaa oo ay sintaa dhagaxanta iyo waliba ciidda taas oo ka dhigaysa garoonka mid saafiya isla markaasna siman waxayna cagaftan in badan ay ka shaqeysaa garoonka magaalada Buuhoodle waxay ka kooban tahay baashani oo aad arkaysaan ciidda oo afka hore ay ku qaado iyo dhagaxa oo ay simiso oo ay ku simiso taayirada aad arkaysaan sida saashada ka muuqata kana watorka loogu adeego habeenkii laguna liyo adeegyada garoonka magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn waxa uu motorku u sahlaa si habeenkii iyo maalinkiiba shaqadu si habsami uga socoto airportka magaalada Buuhoodle waxaana motorkan soo gaarsiiyay airportka qaar ka mid ah jaaliyada gobolada SSC gaar ahaan jaaliyada gobolka Cayn oo isla markaasna ugu baaqday si ay garoonku u dhameystirmo habeen iyo maalin dhexda loogu gunto sidii looga shaqeyn lahaa waxa uu motorku aad arkaysan sida shaashada ka muuqataba uu yahay motor weyn oo tayo badan isla markaasna leerka gaarsiiya qaybaha kala gedisan garoonka walow hadda maalin ay tahay uu san baxaynin balse laakiin habeenku uu si fiican u fushado hawlihiisa shaqo ee lagu dhameystirayo shaqada laga wado airportka magaalada Buuhoodle baalka weyn ee arkaysan waxa la yahay container waxaana lagu kaydiyaa alaabta iyo qalabka lagu sameeyo airportka magaalada Buuhoodle haday tahay majarafado dubayaal iyo waliba qaybaha kala gedisan lagu fuliyo hawlaha airportka magaalada Buuhoodle sidoo kale waxa jirta adeegyo hoose oo iyagu qudhoodu aan ka maarmin in meel xafidan la dhigo isla markaasna lagu kaydiyo baalka weyn ee containerka ah waxaana uu sahlayaa shaqaalaha ka hawlgala airportka si habsami leh inay uga qabsadaan hawlahooda shaqo walow aysan ka dayacmin xilligani هدي أنا ركيجو بيكو فولدين هدي أنا ركيجو قبل ما تسولين سومالك ما دلن هدي أنا ركيجو روح عداوكو كريم هدي أنا ركيجو بيكو فولدين هدي أنا ركيجو قبل ما تسولين سومالك ما دلن مالكا غماندغن عني سماندمين مالكا غماندغن عني سماندمين عيدنا تقملدين مالكا
maalkaaga maandhagan canihiisa maandhamin maalkaaga maandhagan canihiisa maandhamin ciidana dhaqmalegi haddii aanan dhulkaygu gaaja kuugu dhuubnaan haddii aanan dhibaatada dhexda suunka ku adkayn haddii aanan dhaxantiyo milicdaba u dhereeran soomaali kama dhalan haddii aanan dhulkaygu gaaja kuugu dhuubnaan haddii aanan dhibaatada dhexda suunka ku adkayn haddii aanan dhaxantiyo milicdaba u dhereeran soomaali kama dhalan midha kamaan guran duniga bamaan cunin midha kamaan guran duniga bamaan cunin kuma dhaqaadan magaca midha kamaan guran duniga bamaan cunin midha kamaan guran duniga bamaan cunin kuma dhaqaadan magaca haddii aanan dhulkaygu ruux cadaawa ku karin haddii aanan dhulkaygu dhiig kuugu fooldhigin haddii aanan dhulkaygu gobonnimada soo dhicin soomaali kama dhalan haddii aanan dhulkaygu ruux cadaawa ku karin haddii aanan dhulkaygu dhiig kuugu fooldhigin haddii aanan dhulkaygu gobonnimada soo dhicin soomaali kama dhalan maalkaaga maandhagan canihiisa maandhamin maalkaaga maandhagan canihiisa maandhamin ciidana dhaqmalidin maalkaaga maandhagan canihiisa maandhamin maalkaaga maandhagan canihiisa maandhamin ciidana dhaqmalidin haddii aanan dhulkaygu gaaja kuugu dhuubnaan